بسم الله الحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كسر هذا برنامج كبع فكر كاجا درس كان مانته وحنا قادن دونا waxa la yiraahdo prenatal care yani haweeneyda xaamilada sida ogsoonahay waxay u baahan tahay mar walba daryeel gaar ah yani maalintii uurka yeelato ilaa maalintii ka dhalayso waxay u baahan tahay daryeel gaar ah marka waxaan ku soo qaadan doonaa prenatal care ka maanta waxay u baahan tahay inay sameyso haweeneyda markii uurka leedahay inta badan waxa loo qeybiyaa yani 40ka week ama 9ka bilood wala kala qeybiyaa saddex qeybood baa loo qeybiyaa yani qeybta koowaad waxa la yiraahdaa yani waxa la yiraahdaa first trimester saddexda bil ugu horeysa yani second trimester saddexda bil ee dhexe iyo third trimester saddexda bil ee ugu dambaysa ayaa loo kala qeybiyaa saddex bilood baa loo kala qeybiyaa saddex bil walba oo gaar ah waxba la eegaa waxba la socdaa test kala duwan baa la sameeyaa okay saddexda bil ugu horeysa yani oo loo yaqaano first trimester ka maxaa loo baahan yahay in la sameeyo saddexda bil ugu horeysa waa wiiga koowaad ilaa wiiga 12aad ee loo yaqaana gabadha markay uurka yeelato yani haday wax ka sheegayna qaabkii test u sameyn karto ay guriga joogto inay uur leedahay markii ay ogaatay inay uur leedahay waxay u baahan tahay in la xiriidho dhakhtarkeeda ama xarunta caafimaadka ama oo daryeelka inay la xiriidho ay u baahan tahay waxa laga qaadi doonaa dhiig baa laga qaadi doonaa oo waxa la yiraahdaa CBC baa la yiraahdaa dabeetana waxa la eegayaa yani blood type ama dhiiga nooceeda uu yahay yani blood type-keeda ama blood group-ka nooca ay tahay ayaa la ogaanayaa sidoo kale waxa la ogaanayaa waxa la yiraahdo rhesus yani ama waxa la yaqaan ama waxa la yiraahdaa RHD inuu dhiigeeda leeyahay positive inay tahay gabadhii inaan ahayn darsiyada soo socda aan kaga hadli doonaa way muhiim u tahay fahmaysa in rhesuska la eego sababtoo khatar far badan buu keenayaa marka adiga ma garanaysaa aad negative tahay baby-gana markuu positive markuu yahay dhibaato caafimaad ayuu keenayaa sidoo kale waxaa loo baahan la sameeyo serological test adoo waxaa la ogaanayaa inaan noocyo kamid ah infection haysato iyo yani cudurrada loo yaqaano sexual transmitted disease yani cudurrada yani isku tagga ama sexiga marka la sameynayo ku faafa sida waxa la yiraahdaa syphilis jabta oo maleynaya Soomaaligu yiraahdo waxa uu maleynaya wax la yiraahdo chlamydia waxa la yiraahdo gonorrhea waxa u baahan sidoo kale hepatitis ama cagaarshow af Soomaaliga oo maleynaya sidoo kale in HIV haysato ama HIV in haysato ayna wala eega sidoo kale waxa u baahan in laga qaado kaadi in laga qaado yani urine analysis baa la kaadi in laga qaado yani ayadoo la eegaya yani ina ma garasade asymptomatic yani infection waxa jira ana wax symptoms lahayn aleeda in kala fahamsa at the same time waxa loo baahan in la urine culture la sameeyo sidoo kale waxa xilliga saddex bil ugu horeysa waxa loo baahan in la ogaado yani waxa la yiraahdo yani fasting glycemia ina sokor qabto in kale la eego sababtoo waxa jirta sokor gaar ah ee ku dhacda waxa la gestational diabetes waxay ku dhacdaa xilliga uurka leedahay ay dadka uurka leedahay gabadha ku dhacdaa in la eego inay leedahay fahmaysa in ku dhacda diabeteska waa darsiyada baan ka sheekan doonaa saddexda bil ee dhexe second trimester ka waxa uu ka bilaabay yani first trimester ka hore waxa loo baahan yahay yani wili waxa loo baahan yahay 12aad ilaa 13aad inay gabadhii ay sameyso scan inay sameyso ama ultrasound si loo ogaado yani baby-ga gestational age-ka of the macna fetus-ka in xilliga da'diisa in la ogaado ma garasna waa xilliga ugu fiican da'diisa la ogaan karayo gabadhana la qiimeyn karayo xilliga ugu fiican xilliga ay dhalayso ka kale waxa timaada saddexda bil ee dhexe saddexda bil hore waxa u baahan tahay in sameyso blood pressure-ka in la tijaabiyo sababta loo tijaabiyana darsiyadan baa kaga hadli doontaa sababtoo ayna waxa jirta dhiigkar ku dhaca gabadha markay uurka leedahay bes sababtoo sidoo kale waxa loo baahan in la sameeyo fundal height-ka in la cabiro yani mar walba calooshaada way sii koraysaa way sii balaaranaysaa in mar walba la cabiro sidoo kale waxaa loo baahan yahay wiiga 24aad ilaa 28aad intuu dhaxaysa in la eego wax la yiraahdo yani OGTT in la sameeyo waa oral glucose tolerance test yani waxa la tijaabinayaa heerka u dul qaadan karto in magarasa sokorta lagu siiyo sababta still waxa la eegayaa
inay ku dhacayso magarasa dee gestational diabeteska sokorta ku dhacda xilliga markii uurka leeyahay fahamsan sidoo kale waxaa loo baahan yahay in la eego yani waxa la yidhahdo fatal heart ratega canuga caloosha ku jira yani garaaca wadnihiisa in la eego taana waxaa la eegi karayaa wixii ka bilaabo magarasa dee wiiga 24aad sidoo kale wiiga 18aad laga bilaabo waxaa la maqli karayaa ama la arki karayaa ama la dareemi karayaa dhaqdhaqaaqa yani babyga caloosha ku jira dhaqdhaqaaqiisa أنا أبي أمي متاعي إن لا صعد لقى بالله ويجس تمنى إن لا صعد دقاقيسة حتى دقاقيسة ويسو أما سيفع دقاق وايو وأنا دكتورك الله حريدا سيدا أقول أخسي عبادن سيدا حدا بال قدام بيسا وحلا سميني بلاد براشة كاجا مرلا ولا إيجيا يورين أنالايز بالغادة كسكاديدا ترت الغادة ولي وحلا بريا وحلا عبريا هيرك عروش هذا مجالسة بناك أصبح يسوق بالارنا يسوق سيدا كانوا وحلا إيجيا إيجيا مرلا ولا إيجيا waxaa la eegayaa any infection mafahmaysaa mar labaad la eegayaa waxaa kaloo la eegayaa yani ultrasound ayaa waxaa la eegayaa yani ama scanba waxaa la eegayaa babygaaga caloosha ku jira inuu madaxa u hooseeyo ama inuu madaxa u koreeya la eegayaa taasina waa muhiim sidoo kale waxaa la eegayaa yani waxa la yidhahdo group B streptococcus infection waa infection gaara ay xilligaa ku dhaca mafahmaysaa ay khatar badan na dhowte caruurta u geysan karaya waxaanu ilaawnay wiiga يعني سدح بالها دحي waxaa jirta يعني 18 wiiga 18aad ilaa wiiga 20aad waxaa jirta in iskaan la sameeyo iskaanka waa iskaanka lagu ogaanayo genderka uu yahay caruurta caloosha ku jira ma gabarba ma wiilba waa xilliga la ogaado marka saddexda bil ugu horeysa saddexda bil dhexe iyo saddexda bil ugu dambaysa halka ayaa ku soo gabagabeynayna waa maasan